حياتي لوحة وأنا أعاني من حيرة الفرشاة والألوان. markaad caawasa waxaana sawaanaa tidhahda war 24 saacadood oo sanado iyo raayaan haystay waa tegay 24 maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay ليس في معاني من ذا يداوي حيرتي ويدلني كيما أرى بين الخطوط مكاني. baahannahay tarbiya tiro badan oo asalku ah mujaahada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلهي وحلي كوا حقيقة أددالة وجهاتما أن الطريق وقهن ونيابا إليه سبحانه وتعالى إذا نفت بن آدم كي ويكرطه waxa koriyaba in leenay aqeedada fiican waxa koriyaba in leenay acmaasha saalixa waxa si fiican u koriyaba in leenay inaad la dhaqanto maxay mujtamac iyo bii'a fiican dad wanaagsan inaad la noolaato way asxaabta xuna sharka haddaad la dhaqanto qof ay badan haddaad raacdo waa dhib mid shar badan haddaad raacdo waa dhib mid salaada ka taga haddaad raacdo waa dhib waa inay noqotaa bii'ada iyo environmentka kugu xeeranay bii'a khayr leh bii'a fiican bii'ada fiican waxaa laga faa'iidaa maalintaad adigu daalan tahay walaashaada kale ayaa nashiita qofka bini aadamkii mar kastaba ma firfircoona marmar badanoo naftu ay caajista ama daasha baa jirta laakiin walaasha ayaa firfircoonay markay kula joogto iyadaa gacanta ku qabanayso hore kuu qaadaysa maalinta iyadu daashanaadaa gacanta qabanaya dadku khayrku isku gargaarsada idan qofku inuu majaalis alkhayr u yimaado meelaha khayrka lagu hayo uu xaadiro dhulka wanaagga lagu hayo uu tago waxay noqonaysaa naftiisu inay korayso kobcayso waa zaad waa sahay naftu ay u baahantay keligaa haddaad socoto waa daali laakiin haddaad haysato sahay ama gaadhi ku qaada ama waxaad sii cunto ama dayuurad ama waxaad fuusho socodku uu kuu fududaanaya waxyaabaha socodkaa fudaydiya socod baad ku jirtaa in janno lagu socdo siraat almustaqiim oo janno taga waxa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad dadka khayrka la raacdid majaalista khayrka lagu haya inaad xaadirtid meelaha wanaagga laga sheegaya inaad joogtid waxa kuu fudaydinaya inaad adiguna isku daydo naftaada maalinle inaad ula dhaqantid haddaad dukaan haysato oo aad seexanayso fiidkii waxaa laga yaabaa qof waliba xisaabtiisu xidha maanta wixii laga iibsaday lacagtoo dhan buu tiriyaa dhan buu dhigaa weliba lacagtuu kala saarsaara wixii boqol iyo konton iyo shan iyo inba meel buu ku qoraa wuxuu qoraa wixii dayn maanta uu bixiyey iyo dadkii uu lacagta ku yeeshay oo dhan wixii uu lacag soo galay oo dhan si fiican buu u xisaabtamaa habeenkii wuxuu seexdaa markuu xisaabta xidho isagoo garanaya wuxuu faa'iiday wuxuu khasaaray waxa dayn uga maqan waxaasi oo dhan waxaad xisaabinayso o dhan waa ra'samaalkii dunawiga ahaa bal ka warran ra'samaalkaagii dhammaayay cimriga ahaana nolosha gebigeedaba waxaad ku leedahay waa sannadahan yar aad jirto ee 60 50 40 70 waa intaa ra'samaalkaad haysataa hantida aad rogrogaysaa waa 70 sannadood ama waa 60 sannadood ama waa 50 sannadood kontonkii sana waa inay kuu xisaabsanaadaan markaad caawa seexanaysa waa inaad tidhahdaa war 24 saacadood oo sanado iyo raayaan haystay baa tagay 24 maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa maanta maxaan qabtay 5 salaadood waan tukaday intii kale xagee ku baxday maxaa ii kordhay aakhiradaydii maxaan dhisay maxaan dambi iga dhacay haddaad si fiican u xisaabtanto habeen walba markaad seexanayso waxaad garan lahayd aroorta dambe waxaad ku kaakacayso iyo meeshaad u kacayso waayo cimrigu waa wax yar naf iyo shaytaan baa ku odhanaya waa wakhti badan baa ku hodhay iska noolow waa maalmo qofka imika 5 jirka maraya ka 6 jirka maraya labaduba nolosha way la yarta way gebigeeda maalmo ah maalmahaasi waxay u baahan inaad si wanaagsan ugu xisaabtantid wixii kaa tagay waxa kuu hadhay inaad isweydiiso warta caawa hadday baxdaba soo noqon weydo maxaa tala ah ilaan ilaahay baa quraanka wuxuu ku leeyahay nafta markay jiifsato waan qabanaaba ilaahay dabeetana waxa la yidhi tii waqtigeeda wax u hadhayna waa la soo daayaa
tii kalena waa la hayaa inay adiga tallahaynaya tahay iyo inay tala soo daynaya tahay ma kala hogtid ha iskaga talagelin inaad aroorta soo kici doonto in badan baa intay seexataan aroortii dib u soo toosin wax waliba way dhici karaa sidaadaad isaga baktiyi kartaa sidaadaa gurigu kuugu dubi karaa sidaadaa xabad seeraaro meelaha ka soo dhacda kugu dhici kartaa sidaadaa danab dusha kaga dhici karaa gurigiinna sidaaday wax waliba waa dubi karaa sidaadaad isaga dhiman kartaa idan waxaa inaad ku xisaabtantaa warta caawa hadday dhammaato taadii maxaa kaa horeeya qofku hadduu muraaqaba samaynayo oo wax kasta uu samaynayo uu ilaahay ka dhex arkayo subxaana wa tacaala hadduu xisaabtamayo oo noloshiisao dhan xisaabinayo hadduu dadaalayo oo uu leeyahay arday markaati aad wax dhiganayso sanad walba waxaad is leedahay shahaada soo qaata shahaado yaraad sheegaysaa waa maxay waxaad ku xisaabtamaysaa waxay 4 sanaa soo dhammayd 5 sanaa soo dhammayd 12 sanaa soo dhammayd 4 jaamacadaa soo dhammayd waxaad xisaabinaysaa wixii aad dhammaysay qofka muslimka waa inuu ku xisaabtamo war naftan intaad koraysa sanadkii hore 5 salaadood unbay tukan jirtay imka halkay maraysaa ma ku dartay sunankii oo dhan sanadkii hore sunanka rawaatibta iyabay ka adkayd iyo salaadaha imika